Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaaw daawada YouTube channelkayga. Maanta waxaan ii hayaa qiso aad u xiiso badan. Ugu horreyn intaan qisada gelin, daawada haddii aad nagu cusub tahay, subscribe inoo saar, furo calaamadda gambaleelka si uu kuu soo gaaro muuqaal waliba oo halkan kusoo gudbiyo. Aan u guda galno muuqaalkeena maanta. Maamo ayaa waxaa ku dhacay ayayna ku dhibtootay iska daba noqoshada dhakhtarka iyo daawooyin badan oo ay qaadatay oo aan wax u qaban waayey. Kadib waxa ay dalbatay in lagu tabaruco oo loo bixiyo keli, qofkii u bixiyana in ay siinayso qiimo dhan 20,000 oo dollar. Dadkii ayaa warkii maamada isla dhex maray oo isku gudbiyey. Waxaa maqashay warkii marwo faqiir ah. Waxa ay ogolaatay inay u bixiso kelideeda oo ay marto wax waliba oo looga baahan yahay oo ah baaritaanno caafimaad oo lagu hubinayo in keliyaheedu caafimaad qabaan. Markii la gaaray maalintii loo asteeyay ama lagu ballamay in marwada kelideeda tabarucaysa in laga bixiyo, ayaa marwadii faqiirta ahayd waxa ay bilowday in ay iska oyso. Kadib ooyinteedii waxaa maqashay maamadii xanuunsaneed. Waxa ayna u soo gashay qolkii ay ku jirtay marwada. Waxa ayna weydiisay, ma waxaad la ooynaysaa oo aad dhibsanaysaa in aad kelideeda ii bixiso? Haddii saas tahay, maxaa kugu qasbay oo u ogolaatay markii hore in aad ii bixiso kelidaada? Waxayna ku jawaabtay marwadii faqiirta ahayd, waxaan aad ugu baahnaa lacagtaas, aad u ballan qaaday in aad siinayso qofkii kuu bixinaya kelidiisa. Sidaas ayaan u ogolaaday, lacagtaas ayaan baahi zaa'id ah u qabay. Markay intaas dhahday waa iska oysay. Kadib maamadii xanuunsaneed ayaa u qalbi dejisay oo ku tiri, waxaan ku sii doonaa lacagtii aan u ballan qaaday qofkii ii bixiya kelidiisa in aan siinayo. Waxna kama baahni oo kelidaada iska hayso. Ma aysan rumaysan marwadii faqiirta ahayd hadalka ay maqashay. Ilmadeedii iyo oohinteediina waxa ay isku beddeshay farxad. Waxa ayna u mahadcelisay Allah subxaanahu wa tacaala. Sidoo kale waxa ay u duceysay maamadii xanuunsaneed in Alle xanuunkeeda ugu beddelo caafimaad taam ah. Maalmo kadib, maamadii xanuunsaneed waxa ay imaatay isbitaalka si ay u marto baaritaanno caafimaad iyo xaaladda ku soo korortay kelideeda. Markii la baarayna, dhakhaatiirtii waxa ay arkeen wax ay la yaabeen, taas oo ah in maamada kelideedu ay caafimaad qabto 100%. Wax dhib ahna kuma aysan arkin kelideedii, oo Allah subxaanahu wa tacaala ayaa caafimaad taam ah siiyey fadligiisa iyo karaamadiisa darteed. Rasuulkuna waxa uu dhahay, ku daaweeya kiina xanuunsan sadaqo. Qofkii kaa fududeeya qof kale culayska haysta, asina Allah ayaa ka fududeeya culayskiisa aakhiro iyo adduunba. Intaa ayay ku egtahay qisadeena maanta daawade. Haddii ilaa inta aad nala socotay waad ku mahadsan tahay. Haddii aad fiidiyowga ka heshana, like inoo saar, siina share garee asxaabtaada si ay u wada arkaan.